السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، waxaad ogsoon tihiin maalmo yar ka hor inay noo bilatay bishii Ramadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala barakada iyo khayrka u geliyey. maantana waxaynu taaganahay bisha 3 meelood marka loo dhigo laba inayna dhaafeen oo qaybtii saddexaad oo quri ay harsan tahay. arrintaasi waxay calaamad u tahay ya cibaadallah sida dhaqsaha ee wakhtigu u tallaabayo, cumriga bani aadamkuna uu u dhinmaayo, u go-ayo. maalin kastoo ka mida maalmaha ayna dhaafay iyo habeenada ayna weydaartay waxa ay ka go-een yaa cibaadallah cumrigeennii. adduunyada inaga fogeeyeen oo waxay noo dhoweeyeen aakhiro. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ina weydiin doonaa, oo qofka arrimaha la weydiinayo waxaa ka mida nabigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay can cumrihi fima afnaah, cumrigiisii waxa uu ku dhameeyey. waqaala rabbuna subxaanahu wa tacaala awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nnadiir, miyaanaan idin cumri siin muddo iyo wakti qofkii waan toobaye wax ku qaadanaya, toobad keenaya, ilaahay u soo noqonaya, aakhira sahay qiimala u urursanaya, uu ka faa'iidaysan karo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, arrinkaasi cibro aynu ka kororsanno, hoosna aynu u eegno, sababna haynoogu noqdo cumriga inta ka hadhay inaynu dadaallo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, waxayna soo hadheeyey oo wakhti kooban inooga hadhsan yahay habeenadii sanadka u fadliga badnaa iyo xulkii bisha Ramadaan ee qiimaha badan. waxaana habeenadaasi ka mida leylatu lqadr, habeenka qadarka weyne sare ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku leh, alatii hiya khayru min 1000 shahr, habeenkaasoo ka khayr badan 1000 bilood. waxaa khasaaray dhab ahaan yaa cibaad allah, khayr oo dhanna guud ahaan ka qaday qofka habeenadaasi khayrkooda ka qada. qofka leylatulqadrigu uu seego ee aanu la kulmin isagoo ilaahay u cibaadaysanaya subxaanahu wa tacaala, oo salaadu taagan, oo akhrinaya kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala, oo badinaya xuska ilaahay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha hoos dhiganaya, qalbigiisana ku wajahaya, isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaaya. wuxuu yihi anas ibnu malik radia allahu canhu, dakhala ramadaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina hada shahra qad xadarakum. waxaa noo soo gashay bishii ramadaan. wuxuu yihi rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam, bishani waa tan idiin timi, wa fiihi leylatun khayru min 1000 shahr, bishan waxaa ka mida oo ku jirta habeen 1000 bilood ka khayr badan. camalka la sameeya camal 1000 bilood la sameeya uu ka khayr badan yahay. man xurimahaa faqad xurima alkhayru kulluh walaa yuxramu khayruha ilaa maxruum. rawaahu ibnu maaja biisnaadin xasan. wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, qofka habeenkaa khayrkiisa ka qadaa dhab ahaan waa mid qaday oo khasaaray. habeenkaana khayrkiisa waxaa ka qada oo qura qof xumaantiisu ilaahay ay ka fogeysay subxaana wa tacaala, oo ilaahay uu ka haystay towfiiqdii iyo waafajintii, hanuunintii iyo toosintii. walaa yuxramu khayruhaa ilaa maxruum. kuma ayaa ku faraxsan yaa cibaad allah, oo raalli ku ah inuu ka mid noqdo kuwa uu noo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kuwa maxruumiin oo khayr oo dhan ka qaday, oo habeenkaa bishaa ku jira qiimaha badan khayrkeedii ka qaday. ayuha almuslimuuna cibaad allah, habeenkaasi ka qadistiisa waxyaabaha kaa badbaadin kara waxaa ka mid ah an tastaxdira fii qalbik cadamata 10 layaali, inaad qalbigaaga ku soo xaadirisay intaanad gaadhinba weynida iyo qiimaha ay leeyihiin 10 habeena u dambeeya bisha ramadaan, gaar ahaanna habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay
gaar ahaanna habeenka witriga ah oo aynaan garanahayn habeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beegi doono iyadoo weliba aynu aragno sida dhaqsaha ee tobankaa habeen ay u dhammaanayaan iyadoo weliba aynaan yaqiinsanayn mar dambe inaynu gaadhi doonno ilaahay baa subxaana wa tacaala garanaya cumrigu intuu sii jiri doono noloshanina inta ay sii socon doonto waxay nagu caawin kareen inaynu ka mid noqonno kuwa aan ka qadin habeenkaa khayrka badan iyo habeenadaasi uu ku jiro inaynu ogaano in nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu doortay oo uu darajeeyey ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala khaatama annabiyiina waarusul oo ilaahay uu ku soo dejiyey afdala kitaab oo rabbi uu ka dhigay axsana caabidin lilah ka ugu cibaado wanaagsan inuu ahaa mid habeenadan tobankaa dadaala oo weliba u dadaalo siduu habeenada kale u dadaalo si ka fara badan oo dheeraadka ah qaalat caaishatu radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii gayrih wuxuu ahaa rasuulka ilaahay mid dadaala tobanka dambe dadaalkii inta hore uu dadaali jiray mid ka badan muslim baa wariyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam hurdada waa ka goy jiray tobankan dambe markay soo galaan waxaanu ku noolayn jiray habeenka oo dhan cibaado hadday tahay salaad iyo hadday tahay dikri iyo haddii ay tahay qur'aan la akhriyo iyo haddii ay tahay sadaqad lala baxo facan caaishata radia allahu canha qaalat ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana ida dakhala alcashru axya alleyl washadda almi'zar waayqada ahlah rawahu albukhaari wa muslim wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe marka ay u soo galaan habeenka oo dhan mid cibaado ku nooleeya oo aan seexan min bidaayatihi ilaa nihaayatihi bilowga habeenka ilaa dhammaadkiisa waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid guntiga geejista waxa uu ahaa mid ku caawiya ehelkiisa iyo qaraabadiisa fursadda qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo u kiciya salaatuleylka ayuha almuslimuuna cibaad allah xadiidkaasi wuxuu tusinayaa ana alafdala fii xaqi lmuslim fii hadihi layaali alcashr an yufaariqa annowm wayatrukaha jumla wayuqbila cala alcibaada sida fadliga badani inay tahay ee darajada sare lagu gaadhayaa habeenadana khayrkooda lagu haleeli karaa in qofka muslimka ahi habeenadan hurdada si dhammaystiran uga tago oo habeenka oo dhan uu ku soo jeedo cibaado ayuha almuslimuuna cibaad allah waxay nagu caawin karaa habeenada inaynu ka faa'iidaysanno si aynu uga badbaadno khasaarahaasi weyn ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku warramay inuu ku habsan doono qofka aan ka faa'iidaysan inuu qof walo inaga midii naftiisa u xisaabiyo sanadka oo dhan nafta intee ayaad u hoggaansanay waxa ay doonaysa aada u samaynaysay haddii ay tahay hurdiya hadday tahay cunno iyo cabbitaan iyo hadday tahay ciyaar iyo baashaal nafta waa inaad la xisaabtanto oo aad ku tidhaahdo nafeey in badan baan hoggaanka kuu sii daayey in badan baan kuu oggolaaday adigu waxaad doonayso fadacnii fii hadihi alayaali calaa maa ashaa min aliqbaali cala allahi tabaaraka wa tacaala walikhaari min altacabudi lah nafay waxaan doonayaa tobankan habeen inaad idayso waxaan doonayaa inaad iga tagto si aan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ugu jeesto oo aan u xaqiijiyo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray ayuha almuslim waxaad ogaataa arrimaha adduunyo ee habeenadan tobankaa laga yaabo inay ku dhaafaan inay suurtagal kuu tahay inaad ka daba tagto haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sii nooleeyo haddii aad geeriyootana adduunya macnaba kuuma leh waad ka faaruqdo ilaahay baa lagu horgeynayaa waxaad se ogaataa yaa cabdallah in faatadka haadihi layaali annaka laa tudrikuhaa habeenadani hadday ku dhaafaan oo ay kugu dhaafaan adoo ku mashquulsan baayac mushtar iyo howlaha adduunya iyo sheekadeed iyo maaran rowgeed inaanad ka daba tegi karina sidaasi ay kugu dhaafeen kuwa soo socdayna inaad gaadhi doonto ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala oo goorta cumrigaagu u dhammaanayo waa sir
إلهي سبحانه وتعالى مويان عدك لاني أغين أيها العبد المسلم هذا دون سينة كفايدة ستو هبين ذن طبعا كايا قيمها بدن حافظ على الأصل وهذه لا لسا أصوشة عباداتك وحي لين أصل يا فرع أصلك وإنت إلهي نغفر لي سبحانه وتعالى من صيام وصلاة وغير ذلك فرعنا وعبادوين كالسنها وحد كد ذا شيء إلى لسا أصوشة إلى أنت أصوش وحي كوكو عاوينيسا فروع دو السنة يا شانين كد داشو فإن الحرص على النوافل يا عبد الله مع تضييع الفرائض لا ينفع ولا يجدي إن كد داش السنة ياشا وهبينكي صلاة التهجد كادو صوكعدو أدو كصيحنا يا صلاة دي الصبح وضيعها يا صلاة دي عشاء وجماعة أن لا تكنهين تاسميلكو قارسين ميسو وحنكو تري ميسو وقيد بلا تشردار رنكاغو وقف مدحي وكما قيهي وحانين وكسونا هاي قيد كا يقف كاسيتونا ينام نفعل هاي أيها العبد المسلم سيجارة وقد دال صلاة عشاء الجماعة لا تكتو سيجارة وقد دال صلاة الصبحين الجماعة لا تكتو اسكا إلالينا الدور رسحورته كدبا ديبو صيحته وطالصابة ونغوط صلاة الصبحين يكون دافته سحورت هذا ديبو ديغو واحد كل ويسا وقتك صلاة الصبح سيدو يالي كريني محمد عليه الصلاة والسلام فإن في ذلك 3 فوائد أرنتا وحكو قجر صدح فائدو تكواد وحاي تاي وقتك قيمها بدنا يا دومها إلهي ويري من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه وريا وحي ويدي سنة يوانسيا يا إبريا يدعى أنك أقبلا أياتكو بيق مساء وقتك إلهي وكو أماني أدوميه سوان أكسن إن إلهي الدنب داف ويديستان وبالأسحار هم يستغفرون وحصورت قلقوا هذه وصحورتي إن هدنا الدعاء ستو ودي إلهي وطوبت كانت الدنب داف ويديستو وهذا الكإلهي وحكم ذا إن هذا أخرجوا من عبادة إلى عبادة إلى عبادة عبادة صحورتين دقورت عبادة دا ذكرك يا استغفارتي قراءة القرآن سيادو وضع إلا يدام الصلاة دي الصبح واتك تسنيه كورية قيمها بدنا كدي من الصلاة دي الصبح جماعة ذات كتكتو لكن هديات صحورة لبدها بينمو وهذا ندباد صيحته ويادكت هيدتك بدن كودنا ويكو علوستهاي هذه سيدا أيلا صلاة الصبحين يكعان ولهذا وحن كرت لنا يا دتك أي مدى دتك تكينا يا صلاة التهجد كا إن صلاة دا سيدي بوديغان ودتك أي وقتغان فرصة كوبا وصحورت أي كغاري كران سياني دتك ديبو قصيحا وأنا أضيعين فرلك إلهي يبقى هبينك يوردان سنة كسوتشيدي أيها العبد المسلم habeen kasta oo ka mid ah habeenada 10ka ah qiimihiisa gaarka buu leeyahay waxaana dhici karta habeen kasta oo habeenada ka mid ah inuu noqdo laylatul qadrigi qiimaha badna waayo xataa maaha mid yaqiin oo la hubo inuu ku jiro laylatul qadrigu habeenada tiroodu kala dhiman tahay oo qura in badanna halkan waa ka sheegnay adiladii axaadiithatu sinaysana waynu muujinay ليلة القدر يقولون كل عكرة هبين تردي سواي بوحده لبي الله واتنك نغن كرة وافر الله واتنك ونغن كرة وهبين كالصدنا هذا بشر رمضان الدنباية إدتك بدن كود وايسك حساب طبيان هبين ندي ترود وكلام للنادين أيضا مادين وليلة القدر يقول ضافي إنه نغن كرايين الشاقري كيف وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان ليلة القدر واحد كرة سال هبينك ودن بيا بشر رمضان هبينك الصقال الله تنادنا ونغن كره هبينك صدنادنا ونغن كره نبي عليه الصلاة والسلام مو ورسيقوا وحكو جرا هبينة ترودو كلا ديمانتها يوقورا ولو قرة شوية هاي سيقارا وقبادي دون بور النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورن هبين ذا كلا سحلا هبين كستو كم ذا هبين ذا ترنكا فضلي سجار كابو ليه يقيميسا
وإن أدقوني سوقيميسو أيها العبد المسلم وأنا تكو حسابت من هبينكي كهرية وحد سميسي يانو الشيطان كوكورني هبينكي كوبي اللواتنات باد داشي ووتري وليلة القدر جينو نقدر الرجيناي هبينك اللبي اللواتنات نفت السيحي والنصي سي هبينك صدحي اللواتنات أدداشو أيها العبد المسلم هبينك كاتجيها كو حسابت من وكو ضافي من أوجد وحلقو قردي خسندها عملك يا وحلقو قري سجلاتك يا دواوينتا عملك يوم القيامة لغو صهر لغي دوره إلا قا أقبل وحيات سميسان وما هيسد إن كستو أددا الشيء هبينك صوص عدنين قاري دون تم وقد هبينك تاقنت هيبا حاصل الراس مالا إساقو يانو كدافين كفا إليسو يا عبد الله أيها المسلمون عباد الله هبين ندن قيمها بدن وحلقوا دون دون كستو مسلمين أن يعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى إنه طاعات كالنوع يوذك للدوان وكددالو قوصشد الشيطان كوكسو توري كري وساوستر ميل وسكبقو آدي آدنو وينيو رجد إلهي وكقبو فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته وسعت خلقه وسعت كل شيء إلهي سبحانه وتعالى فضلك سوامد واسعة رحمتي سنوى بلارنتهاي هاي سكو عريرين الرجوين إلهي كقب فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الدعاء وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي هبرينا إذن كوقوس كتاقنين الدعاء إذن كأقبل آيه إلهي بري سبحانه وتعالى إذن كو يقينسا إلهي الدعاء إذن كأقبل آيه في هذا الدعوة إلى تقوية الرجاء وتعظيمها في الله سبحانه وتعالى إلهي الدعاء إنك أقبلنا معنى هذو معها وحي إلهي هذو ويديستي مركي بين داركته وحدعي كرتين لقا أقبله كيد آخر لقو قدقه وحكرو دعي كرتين لقا أقبله ومصائب يبلايو إن ووين كوكسو السعودي ربي سبحانه وتعالى وكاق الدفاع وحي إلهي هذو ويديستي هداد أركي ويدها دقدقين وهاورن إنوان بري إلهي سبحانه وتعالى دعادين الله يقام أقبلين هبينا ذن قيمها بدن يا عباد الله رجد إلهي فضل كيسا إنو كقبنه دنبي داف كيسا إنو إنقا أقبل عباداتك صلاة دي الدعاء دي ذكر قبائي كمديهين إنو إلهي إنو قدرك ونار تلقى حرين أيو رجد سيادي هذا إنو وينينو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحدقات وقتا قيمها بدنين نقص الصعدة إنه يهي زمن السباق وقت إلهي سبحانه وتعالى أدومه سوق باقين ترتمان فقال لهم فاستبقوا الخيرات إلهي وحوري وقتقاني وقت يذك لبيسقوا كهضلايا خير كوبرة موكل ديريا فيا أيها العبد المسلم لا ترضى بالدون والخسارة راليها كنا قن ترتن كامل هوسينات كقدعبه وكوا دد فربدني أي كسر ريين هذا قواد نقطه بل وحد قوان ستا إناد كمين نقطة ترتن كادت كوغسر ريا وقديريا إلهي سبحانه وتعالى عدنا أنا وقديرين iska ilaali inaad ka mid noqoto tartanka lagu jiro kuwa khasaare ee dhacay ee aan laba sheegin baa laba soo hadal qaadin ka mid noqo kuwa ilaahay uu wasaabiquuna saabiquun ulaa'ika almuqarrabuun kuwii dheereeyey ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u dhow yihiin manzilo iyo darajo sare ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dejinaya ayuha alcabdu almuslim waxaad ogaataa أنه على قدر اجتهادك تكون منزلتك دذالكاغو انت ولاقيهي يجهدك بحسادك بحسا طاعة إلهي منزلة درجة إلهي اكتسادك يالنيسو إياد قاريسا مر بين الله كاريسو فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة فيما رواه مسلم في صحيحه
أجرك على قدر نصبك أجركaagu waxa uu leegyahay dadaalkaaga iyo daalka ka dhashay marba inta uu leegyahay فيا أيها العبد المسلم naftaadu yaanay ka soo istaagin aanay ka biyo diidin ku dadaalka طaacaadka iyo cibaadaadka marnabana ha ka daalin waxaad ogaataa tacabka iyo daalka aad doonaysa inaad sahay aakhira ku urursato ilaahay agtiisana mansilo iyo darajo aad kaga yeelato inay raaxa ka dambayn doonto jaahid nafsaka ya cabdallah naftaada la jihaad weliba wakhtiga intiisa hore inta dambe ilaahay baa kuu fududayn doona kamaa qaala rabbuna subxaanah waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala kuwa naftooda daraadday ula jihaaday waxaan ku hanuunin doonaa waddooyinka khayrka iyo albaabadiisa tirada badan ayuha alcabdu lmuslim sabir nafsaka cala alطaaca faina caaqibata sabrika maxmuuda naftaada waxaad ku sabir siisaa طaacada wakhtigan koobana qiimaha badan cidhib fiican iyo natiijo wanaagsan ayaad sabirkaasi aad ka gaadhi doontaa ayuha alcabdu lmuslim habeenadan qiimaha badan waxaad kulmisaa bayna alkami waalkayf cibaadada badnaanteeda iyo tayadeeda cibaadada farabadi faaktir min alrukuuci waالsujuudi wاlqiyaam wاdducaa'i waqira'ati اlqur'an wاldikri wاtasaduq wasaa'iri abwaabi اlkhayr isla markaa waxaad ku dadaashaa cibaadadaasi inay tayo lahaato oo ay noqoto cibaado aad heshay dhexdeeda xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa oo khashaca fiiha qalbuka lirabbi alcaalamiin wastaslamat wanqaadat jawaarixuka likhaaliqi asamaawaati waalaradiin ha noqoto cibaadadaadu cibaado qalbigaagu u khushuucay dhexdeeda allaha caalamiinta oo dhan rabbiga u ah xubnahaaguna ilaahay ay u hoggaansameen subxaana wa tacaala ha noqoto cibaadadaadu cibaado xumaanta kaa celisa noocyadeeda kala duwan ha noqoto yaa cabdallah cibaadadaadu cibaado iimaan kuu kordhisa cibaado aad ka qaaddo istiqaamo iyo toosnaan sanadkoo dhan sahay kuu noqoto aad ku shaqayso ilaa rabadaanta kale aad ka gaadhayso ama ilaahay uu ku hofsanaayo ayuha almuslimuuna cibaad allah qof waloo inaga midi ehelkiisa iyo qaraabadiisa dumarkiisa iyo carruurtiisa ha ku caawiyo camalka saalixa ah saad maqashee nabigeennu calayhi salaatu wasalaam tobankani marka ay soo galaan dumarka iyo carruurta hurdada uma diidi jirin uma odhan jirin habeenkii oo dhan soo jeeda laakiin kaana yuuqiduhum sala allahu calayh wasalam lisalaati leyl laakiin waxa uu toosin jiray nebi maxamed salaatuleylka ayuu u toosin jiray bal xataa habeenada kale marka uu salaatuleylkiisa dhammaysto caaisha hadday huruddo wuxuu ku odhan jiray sida muslim wariyey yaa caaisha quumii fa awtirii caaishay kacoo salaada witriga tuko khayrka aynu nafteenna la jecel lahay waa inaynu dadkeenna la jeclaano sharka iyo xumaanta iyo cadaabka iyo cadhada ilaahay aynu nafteenna la necebnahay ehelkeenna waa in la necbaano kamaa qaala rabbuna subxaanah ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad raximahu llahu tacaala yaquulu liahli ya ahla addaari intabihuu famaa hadihi daaru nawm wuxuu ku odhan jiray cabdulwaaxid ibnu ziyaad ilaahay oo naxariistay ehelkiisii war dadka gurigan deganow toosa oo kaca cibaadada u kaca daartan aad joogtaane daaru dunyaa la yidhaahdaa maaha daarta hurdadii rasmiga ah inta aad seexanaysana waa inaad seexato adoo niyeysan inaad ugu xoogaysato ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadkiisa facan qariibin yaakulukum udduud aakhiruu xusuusin jiray wakhti dhow baad dhimanaysaan oo iilka laydinku daboolayaa oo halkaa dirxigu idinku cunayaa markaa hurdo taasi ay ka dambaysaa maxay idiin taraysaa ikhtanimuu hadihi alawqaat ka faa'iidaysta wakhtiyadan si qabriga ilaahay idinku nuuriyo ilaahay idinku waasiciyo oo ilaahay subxaana wa tacaala jannaatu naciim ilaahay uu idin geliyo ayuha almuslimuuna cibaad allah
waxaynu ogsoonnahay maanta dadka waxyaabaa lagu imtixaamay waxaa ka mid ah waxaa lagu magacaabaa alajhizatu dakiya telefoonada ay soo galaan khadadka internetku ee qofka isaga oo masaajidka fadhiya haddana adduunyadii oo dhan uu la xidhiidhsan yahay wa mawaaqicu tawaasul التي سميت بهذا الاسم بل هي مواقع التقاطع ضبهان ماها برددكو اي اسكو خريريان بل وبرددكي كلا غويي او qoyskii qurahaaya guri wada degana ayaa mid waliba moobil buu haystaa internetka ayuu shidanayaa oo dhinac buu la jeesanaya miyaanu qoyskii kala go'in cid sheekaysan mayso cidna isxaal ogaan mayso darsigii oo socdo muxaadaradii oo waqtigeedu uu taagan yahay ayaa dadka qaarkood ay shidanayaan fayanqaticuuna biha can alkhayr alladii kaana alwaajibu calayhim an yansituu lahu wayastamicuu waxay kaga go'ayaan xidhiidhka noocaas ah khayrka ay ahayd inay dhegaystaan oo ay u dheg raariciyaan ayuha alcabdu lmuslim waxyaaba maanta dadka aad u mashquuliya bay ka mid yihiin dadka badankooduna wax nafci adduunyo u leh ama sahay aakhiro u noqonaya kuma isticmaalaan dadka badankoodu labay u dhaxeeyaan man yastakhdimuha fima laa yacniih walaa yanfacuhu amaama rabbi alcaalamiin qof u isticmaalaya waxaan macno u lahayn ilaahay hortiina aan anfac ahayn fahada dayaca cumrahu fii gayri ma faa'ida kaasi cumrigiisi buu faa'iide la-aan dayacay dadka qaarkoodna inta waa ka sii liitaan waxay u isticmaalaan wax macsiyo ah oo ilaahay ka fogeynaya subxaanahu wa tacaala ayuha alcabdu lmuslim tobankan habeen waa zamanun ashrafu min an yusrafa fii gayri taaca waa waqti ka sharaf badan oo ka qiimo badan haddaynu garanayno in lagu bixiyo o lagu dhammeeyo waxaan ilaahay taacadiisa ahayn faqtac cilaaqataka ya cabdallah macaha fi hadihi اlayaali ajhisada noocaas iyo qalabka ay suurtagalka tahay inuu ku mashquuliyo oo fursad taagnayd oo ay ahayd inaad ka faa'iidaysato uu ku seejiyo xidhiidhka ugu yaraan tobanka habeen iska xidh telefoonka masaajidka xataa haddaad la imanayso mid dhagala oo inaad ku hadasho ama lagaala soo hadlo mooyaane aan si kale cid kuula xidhiidhinahayn masaajidka u soo qaada ya cabdallah wallahi ina hada la amru muhimun jidda waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waana dardaaran culus oo muslimiinta masaajidda ku ictikaafaya iyo kuwa maalmaha rabadaan jooga iyo kuwa habeenada rabadaan weliba tobanka dambe salaatuleylka u imanaya aadaan ugu adkaynayo oo aad iyo aadaan u xusuusinayo ayuha almuslimuuna cibaad allah dadkaa hortayda ka muuqda dhalinyaray u badan yihiin waxaan leeyahay ayuha ashabaab اغتنموا القوة والنشاط وفرصة الشباب في طاعة الله في ليالي العشر dhalinyarooy awoodii xoogga ilaahay idin siiyey caafimaadka ilaahay idinku arsaaqay firfircoonida iyo dardarta aad haysaan fursadda qaaliga ah ee dhalinyaronimada oo fursadaha cumriga kuwa u qaalisan ka mida ka faa'iidaysta yaa cibaad allah kaga faa'iidaysta ilaahay taacadiisa habeenadan tobanka aadka iyo aadka u kooban maqlana taladii uu idiin soo jeediyey nabigeennii moxamed calayhi salaatu wasalaam xayثu qaala iqtanim khamsan qabla khams wuxu uhi rasuulku shan ka faa'iidayso shan arrimood oo shantaa fursadood meesha ka saara intaanay iman waxaa ka mid ahaa shabaabaka qabla haramik war ka faa'iidayso dhalinyaronimadaada inta aanad gaboobin oo aanay taagi kuu run sheegin oo khayrkaadoo qalbiga ka doonaaya xubnahaagu inay samayn kari waayaan aanad gaadhin maqla taladii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xayثu nabahakum ya shabaab ana shabaabakum ana wakta shabaabikum satus'aluuna canhu ywma alqiyaama wa ana aqdaamakum la tazuul xataa tus'ala canhu waxaad maqashaan warkuu idin sheegay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam laa tazuulu qadama cabdi ywma alqiyaama xataa yus'ala can arbac
addoon waliba maalinta qiyaamo waa taagnaan doonaa ilaa afar la weydiiyo. min hadihi alarbac ya cibaad allah can shabaabihi fima ablaah, waxaa qof walba la weydiin doonaa dhalinyaronimadiisii waxa uu ku baaliyeeyey baa la weydiin doonaa. ayuha almuslimuuna cibaad allah, dadkii wanaagsanaa cilmiga iyo khayrka kulmiyey dhalinyarta aad bay ula dardaarmi jireen. fahada abu isxaaq asabiiciyu raximah llah yaquul ya macshara ashabaab jidduu wاjtahiduu wabaadiruu quwatakum واغتنموا شريبتكم قبل أن تعجزوا. وهذا عبد الواحد بن زياد يقول قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا. دليري كعا انت دليرته انت كذا وفرصتها كفايديستا. وكان سفيان يقول رحمه الله إذا لم تصلوا اليوم، هو يخاطب الشباب، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ دليري ما انتهى إذا انت كان فرلي يصمي قيام الليل، goorma ayaa tukan doontaan? ma marka xanuun idin dishoodo? ma marka gabow uu taagtiinna iyo awooddiinna iyo tamartiinna qaato? fursaddaa taagan ka faa'iidaysta. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annar. allahuma salli calaa nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama sallayta calaa ibrahima wacala ali ibrahim. barik calaa muxamedi wacala ali muxamed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.